وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آية مالنتي سودكتي قال كي ويناي الرجل عقبة بن أبي معيط أيا عزمت بو سمية مقالنا مكة دحديدا وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وصوصاري دعوة إسلامكو آية هاي مارك تاني غريبة هاي دعوة إسلامكو غريبة هاي دويرين مركا بريقانا مقالنا مكة شخصيga ugu sharaf badan magaalada Makka ee dadkoodan ugu jecel yihiin ee la rumeeyo hadalkiisa ee amaanada lagu aamino wuxuu ahaa nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam buu ahaa marka nin Qurayshiya oo reer Makka markuu cazumad uu sameeyo shakhsiga ugu horeeyo cazumada uu sheegi jiray wuxuu ahaa nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam marka ninka gaalka Uqbata ibn Abi Mu'ayth la oran jiray Uqbata ibn Abi Mu'ayth wuxuu sameeyay marka maadaama cazumad uu leeyahay shakhsiga ugu horeeyo ka bilaabay cazumada wuxuu noqday nabigeenu marka u bandhigo wuxuu Muhammadow cazumad baan leeyahay igala soo qayb gal buu yiri marka buu nabigu marxaba waa markii u horeysay leeyahay nabiga lagu yiri fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin ay dacwada islaamku magaalada Makka qariib ay ku tahay qariib ee nin aliyeenkii islaamana la dhibayo la cadaabayo ayuu ninkan cazumad sameeyay ninkan gaalka mushrika waxa cazumadiisi ugu horeysay u bandhigana waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waayo nabigeena wuxuu ahaa magaalada Makka mujtamaca ku nool shakhsiga ugu dabeecada wanaagsan buu ahaa ugu rusheegsan buu ahaa ugu amaano fiican buu ahaa saadiq almasduuq bay carabta oran jireen rusheegihii la rumaysanayay buu ahaa muhammad al-amiin bay oran jireen muhammadkii amaanada lahaa buu ahaa maadaama nabigu ahaa shakhsiga ugu sharaf badan Quraysh cazumada shakhsi ugu horeeyay loo sheegay waxa uu noqday nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam dadna markaa buu nabigu yimid oo dadkii waliba ugu soo horeeyayba inagu maanta waxa laga yaabaa ballanta ma ilaalino ballanta ninka ilaaliyana waa muumin qofka ballanta baajiyana waa calaamatu nifaaq ba ku jirta aayatul munaafiq thalath calaamaadka qofka munaafiqa lagu garta nabigu wuxuu waa saddex markuu sheekayn been buu ku sheekeeyaa marka la amaanana amaanada uu khaayima markuu ballan qaadana ballanka uu ka baxaa buu rasuulku yiri wa fi riwaayatin wa idha khasama fajara hadduu doodayana buu nabigu dhahay been iyo xaq darro ku doodaa buu nabigu qofkaas calaamaadkaas munaafiqiinta lagu yaqaana calaamaadka muuminka lagu yaqaanana waa cagsigeega hadduu ballan qaado muuminku ballanta uu ilaaliya hadduu sheekayna run buu ku sheekeeyaa haddii amaano loo dhiibtayna amaanada loo dhiibtay sidii loogu dhiibtay baa loogu yimaada qofka muuminka marka nabigeenu alayhi salaatu wasalaam isagoo ilaalinaya maaragtaane ballanka uu ninka la galay isagoo ilaalinaya dad hortiibuu nabigu yimid meesha laga qadaynayay markaas mujrimiintii Quraysheedna way gadaashiisay ka yimaadeen Aba Jahl baa yimiday Uqba yimiday Shayba yimiday Rabiica yimiday Walid bin Mughira yimiday gaaladii waaweyneed oo dhan baa timiday marale markay arkeen majliska nabigeena oo fadhiya alayhi salaatu wasalaam ayay ninkii gaalka ay cazumada fidiye ku yiraahdeen war ma annaka ya Muhammad baad meel isku kaaya keentay ku yiraahdeen miyaanad ka warqabin aniga Muhammad waxa naga dhaxeeyay waan ka warqabaaye laakiin Muhammad nin la dhaafi kara maaha waayo magaalada Makka waa shakhsiga ugu sharaf badan weeyaan ee ugu amaano fiican weeyaan ee ugu rusheegnimo badan weeyaan waa ajiib akhlaaqdaada wanaaggeega inuu qofku muslima uu ku qiro way fiican tahay laakiin waxa ka sii cajab badan qof cadowgaaga ah inuu akhlaaq wanaaggaaga uu ku qiro taas ka sii cajab badan markaasay kaceen nimankii Quraysheed iyo koox caroon ay yiraahdeen war waa ka kacaynaa meesha annagu waayo imma Muhammad imma annaka na dooro imma Muhammad oo meesha ka saarta waliba seed uga saaraysa waad caay hortayda ayaad ku caay qandhuufna waad ku tufi waliba waad bahdili waxaad oranaysaa anu kuma yeeranay meesha ii dhaafad oranaysaa imma annaka dareerayna markaasuu yiri war ininku ay ga dareerinay isaga fudude isaga saariya ii kaadiyay sidii ay ka dalbeen buu nabiga hortooda ku sameeyay gaalkaas bal ka waran bahdilaada inta lag nabiga loo geystay maxaa nabiga maalinkaas sida loogu bahdilay ma taqaana waa sida aniga iyo adiga diinta islaamku noo soo gaari lahay darteed ayaa nabiga loogu dhibayay aniga iyo adiga dartay ayaa nabiga loo ihaanaysanayay waayo markiisii hore inta nabinimada la saarin
sharaf iyo karaamuu iska lahaa laakiin maalintuu yidhi nebi baan oo rasuul baan ahay oo ilaahay baa caalamka ii soo diray oo dadka adduunyada ku nool baan risaalada gaadhsiinaya maalintuu nebigu yidhi ayaa wixii dad adduunyada jooga nebigeenna ka wada hor yimaadeen isagoo lilmadu ay ka daadanayso ayuu nebigu ka baxay aqalkii sala allahu calayhi wasalam laakiin qur'aankaa la socda nebiga qur'aankaa la socda waxyigaa ku soo degaya markaaba qalbigiisa ayaa laga biinayaa murugta la soo daristay qur'aankaa markiiba soo degay wa yowma yacaddu الظaalimu calىa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii وkana الshayطaanu lilinsaani khaduula وqaala الrasuulu ya rab ina qowmi اtakhaduu hada الqur'ana mahjuura وkadalika jacalna likuli nabiyi caduwa min almujrimiina وkafaa birabbika haadiya wanasiira وkafaa birabbika haadiya wanasiira wadkur baa nebiga lagu yihi xus xasuusnow maalin baa imani doonta baa nebiga lagu yidhi daalimkaa adiga aqalkiisa kaa soo saaray inuu adiga wax ku yeelay buu moodayaa daalimka iyo daalimiinta ka dambaysa oo dhan maalin baa imani doonta baa ilaahay leeyahay farta ay dhexda ka qanini doonaan farta intay dhexda ka qaninaan bay odhan doonaan ay ku calaacali doonaan way maxaa muxamed u raaci waaye dariiqadiisa way maxaa nebi maxamed ugu dayan waayey way maalinkii iyaka intoon iska saaro maan isaga la soo hadhaa maan hadalkiisa rumeeya maan diintiisa raaca maalin bay ku calaacali doonaan baa ilaahay yidhi kee ku kasta oo daalima ku kasta oo daalima maxaan abaajahal uga dhiganaya saaxiib maanta innaka walaalayaal dhallinyaradeenna mujtamaciinnan dhallinyar baad u badan tihiin wiilal ubadkayga ladaa aad u badan tihiin gabdho ablahayga ladaa aad u badan tihiin walaakiin waxaa murug nagu haysa maanta dhallinyaradeenni maanta ayay ku dayanayaan ma nebigoogii moxamed calayhi salaatu wasalaam ayay ku dayanayaan mise maqduubi calayhim wala daalliin bay ku dayanayaan ma dad ilaahay u cadhooday oo la yidhi cadho ilaahay baa ku dhacday iyo nasaaro la yidhi way baadiyoobeen oo way lumeen oo xaqii way ka waadeenoo caqligoogiiba kuma socdaan dad la yidhi miyay ku dayanayaan maanta dhallinyaradeenii ayakoo ka hadhay hadigii nebigooga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga ilaahay ku yidhi wa qaala arasuulu markaa buu nebigu yidhi yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura yaa rabbi ummaddaydii qoomkaygii quraysheed qur-aankaa way ka hijroodeen jeesjees bay ka yeesheen barashadiisii way ka dheeraadeen ku dhaqankiisii way ka dheeraadeen isku xukunkiisii way ka dheeraadeen aaminaaddiisii way ka dheeraadeen ku camalfalkiisii way ka dheeraadeen markaasaa ilaahay nebigiisa ku leeyahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin mujrimiintaasi ummaddaada way ku jiraan laakiin adiga kuguma koobna baa ilaahay ku yidhi nebiyadii hortaa diinta aan u soo diranayba mujrimiin bay iyakuna cadowya mujrimiin ee lahaayeen baa ilaahay yidhi annakaan u yeella baa ilaahay yidhi wakafaa birabbika haadiyan wanasiira adiga miyaa ilaahay baa kugu filan baa lagu yidhi ilaahay baa ku hadaynaya dariiqa xaqa ilaahay baa kugu ridaya gargaar haddaad u baahatana ilaahay baad haysataa kuma dhibi karayaan kuma taaban karayaan wallaahu yacsibuka min annaas inay qurayshi dhib kuu geysata ha ka filan waayo adiga ilaahay baa ku ilaalinaya baa nebiga laga yidhi yaa ilaalinaya nebigeenna ayaa ilaalinaya haddaan ilaahay amarkiisa qaadanno oo dariiqadii nebigeenna raacna calayhi salaatu wasalaam inakan ayaana ilaalinaya markaas ilaahay baana ilaalin marka haddii maanta adduunka dusheeda 60 sano qofka nebi maxamed sunnadiisa hadigiisa raaci waaya maalin baa cali doon maxaan u raaci waayey maxaa nebi maxamed ugu dayani waaya dariiqadiisa khalaa'iqda markay soo baxay nabi ibraahim dad hortii dharka loogu xidhay ma taqaanaan maalintii ilaahay dartii dabka loogu tuurayey
ayay qoomkiisu dharka ka saareen baa la yidhi markaa buu nebigu uhi wainahu sayujaa'u birijaalin min ummatii rag ummaddayda ka mid ah ayaa la keeni doonaa markaabay darkayga ku soo qamaamayaan malaa'igta ayaa xagga bidixda u weecin doonta buu rasuulku yidhi acaadana allahu min dalik aamiin dhaxada markaa buu anuu arkaya buu nebigu anuu arkaya ayaa loo weecin doonaa xagga naarta jahannama fa aquulu waxaan odhan doonaa yaa rabbi asxaabii yaa rabbi kuwaas waa ummaddaydii yaa rabbi kuwaasi waa muslimiin markaa baa la odhan doonaa yaa muxamed adiga dabadaa kuwaa waxay sameeyeen kama warqabtide ka leexa baa nebiga lagu odhan doonaa markaad adduunka aduu ka soo baxday diintii bay dib uga noqdeen sunnadaadii bay khilaafeen laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin gaalnimadu maaha asnaam la hoos fadhiistee qofku salaada hadduu ka tago uu camdan uga tago uu ku gaaloobayaa dhiigga muslimka qofku hadduu xalaashado uu ku gaaloobayaa hadduu qur-aanka ku jeesjeeso uu ku gaaloobayaa dhaqanka gaalada hadduu u arko horumar oo dhaqankii nebi maxamed u arko inay tahay dibu socodnimo uu ku gaaloobaya markaasaa la odhan doonaa markaad adduunka ka soo timiday adigu warkama haysid wixii ka dhacee ummadaadu dariiqadaadii bay bedileen sunnadaadii bay bedileen diintii aad ula tagtay bay ka noqdeen markaa buu nebigu odhan doonaa suxqan suxqa naarta ku fogeeya naarta ku fogeeya buu nebigu odhan doonaa allah inaga badbaadiyo kuwa naarta laga fogeeyo allah inaga dhigo kuwa jannada lagu karaameeyo lagu deeqana allah inaga dhigo war amiin dhahada dee lidaalika sunnadii nebigeenna ha noolayna calayhi salaatu wasalaam oo diinteenna yaanan ka faanine diintaada ku faan muslim baa tahay sunnada nebiga ku faan oo qur-aanka baro oo diintaada ka shaqee oo sida diinteennu nolosheenna u iman lahayd shaqay diintu u baahan tahay maanta diinta waa laga shaqeeyaa oo nebigeennaa ka shaqeeyey oo saxaabatu rasuulillaahi way ka shaqeeyeen oo haweenkiibaa ka shaqeeyey cahdigii nebiga asmaa bintu cumays baa odhan jirtay 9 qaswadood baa nebi maxamed anigu aan la baxay tiro la qaaday dagaal markaasaa lagu yihi asmaayey dumar baa tahay haweeney baa tahee 9 jihaad markaa nebiga aad kala qayb gashay oo maxaad qabanayseen idinku waxay tidhi ragga la soo dhaawacayna waan waraabinaynay ka bukana waan dhaydhayayno waan daweynaynay bay tihi annagu meesha diintoodu ay ku badbaadaysa bay la aadayeen islaamnimadooda hijrada waa maxay hijra waa maxay way hijroodeen maxay ka dhigan tahay magaaladay ku dhasheen baa loo diiday inay ilaahay ku caabudaan oo diintooda ku dhaqmaan deedna markaabay nebiga ku yidhahdeen nebi allow meel aan diinteeda xorriyad ugu haysanaan rabnaa ee nafasax markaa buu nebigu yihi xaggee tegi lahaydeen ardulxabashaa tegi lahayd waa runtiina tega buu nebigu yidhi melig caadila ayaa ardulxabasha jooga oon agtiisa dadka lagu dulmayna tega buu rasuulku yidhi cabdullaahi binu zayd saxaabiga la odhan jiray ayaa xaaskiisii u yimid oo ku yidhi na heblaayoy hee bay tidhi waa la socdee ardulxabashaa loo hijroonayaaye oo gaaladani mushrikiinta waa ka dhehbaxaynaaye dameerkiina waa ka kuu joogee rarka inoo saar oo biyo inoo saar oo baadka inoo saar oo gogasha inoo saar waa la dhaqaaqayaa isdiyaari buu ku yidhi iyadoo dameerkeygii soo qaadatay oo aqalka ku hor xidhatay oo dharkii dul dhigatay oo biyihiina dhaansanaysa cumar binu khadaab bay qaraabo ahaayeen baa la yidhi islaantiisa cumar oo markaa weli aanan islaamin oo gaala markaa oo seeftii sita oo laga baqaaya cumar binu khadaab ayaa kor yimid islaanta iyadoo dameerkii raranaysa wuxuu yidhi naa in adeer halkee tegaysaa buu ku yidhi qaraabay ahaayeen baa la yidhi sidaa intay eegtay bay ku tiri waa ka tegaynaa dalka waa niiga tegaynaa bay ku tiri oo xaggee tegaysaan waxay tihi meeshaan alliye meeshaan ilaahana abuuray iyo diintayada islaamka aan xor ugu haysan karno ayaan aadaynaa oo tegaynaa dalkiinna iyo shirkigiinnana waan inii daynay maxaad naga rabtaa bay ku tihi markaa sidaa intuu eegay wuu fikiray wuxuu yidhi safarkaa aad u dhaqaaqdeen ilaahay wehel haynii noqdee socda buu ku yidhi bal u fiirsada qisadaas sheekada xagga dambe joojiyo dhegaysta marka islaantii way dhafooraday qabsatay iyadoo dhafoorada haysatoo fikiraysa ayaa ninkeedii baa yimiday naa waa la dhaqaaqay ina mari maxaa ku fadhiisiiyey
waxay tidhi war wax iga yaabiyaan maanta arkay ku tidhi oo maxaad aragtay cumar binu khadaab ma garan haa cadaawadda islaamka u haya soomaad ogeyn haa cumar oo maanta qalbigiisii soo dabcaayo jalcayaan arkay ku tidhi oo halkan uu kugu yimid haa de muxuu yidhi de u i waraysto markii aan u warramayna uba noo duceeyo wuxuu iigu duceeyuu yidhi safarkaa aad u dhaqaaqdeen ilaahay u hel haynii noqdo markaa bui waad war laadahay buu ka yidhi ma cumar baad damcaysaa inuu islaamo odayga khadaab dameerkiisa islaamnimada uga dhow buu ka yidhi cumar waa ariib bay ahayd cumar baa islaami ariib meesha laga soo dhiganay cadaawadda imika inagu khayrkan aad ku soo ururteen anigu ma aaminsani inay tahay aniga inaad ii soo ururteen waxaan aaminsanahay samiima qalbi inaan ka aaminsanahay dadaalka culummadiinna iyo ducaaddiinnu ay nagu bixiyeen ayaa inaga keenay midhaha inaad diinta dhegeysiga ka jeclaataan waxaan waa midho la soo beeray weeyaan hadda go-aya dadaalka iyo tacabka culummada magaaladan iyo ducaaddu ay nagu bixiyeen ay nii duceeyeen ay waxay nagu bareen ee diinta laynagu tarbiyadeeyey weeyaan waxaa keentay inaad masaajidda soo camirtaane maaha dabacadda nii timida maaha anagu bareen naga tegayna laakiin diin jacaylku ninkuu naga muuqdaa sidaasoo kale cumar binu khadaab waxaa qalbiga intaasi cumar binu khadaab waxaa ku dhilatay fikrad la yidhahda alislaam leanna markii dambe cumar faaruuq radia allahu canhu markay hijradii xabasha la tegey ayaa haddana waxaad bilaabantay dadku inay soo mustaqbal leanna cumar binu khadaab qaraar wuxuu seeftii buu soo qaatay sacd ibn abi waqaas baa ka hor yimid radia allahu canhu yihi cumar xaggee seefta u sidataa maanta wuxuu yihi ima muxamed ima ana ama muxamed baa dhiman ama anigaa dhiman maanta oo maxamed maxaad ka dooni waan dilayaa maxaa u dilaysaa ilaahyadeedii buu naga ceebeeyey aabbayaasheedii dhintay buu ahla naar ku sheegay diinteediina wuxuu yidhi waxba kama jiraan annakina wuxuu naga soo dad aan waxba fahmayn dhib buu nagu soo wadaa maxamed ma joogi karnee maanta waa inaan kaga soo jaraa buu yidhi markaas war maxamed kuma dhici kartide oo reer bani cabdulmuطalib baa meesha jooge maxamed kuma dhici kartid laakiin waxaa kuu sheegayaa diinta muxamed sawta reerihiina gashay maa buu ku yidhi horta reerkaaga ka soo zuuli buu ka yidhi ma reerahayga haa oo tuma walaashaa faatima bintu khadaab iyo ninkayga saciid binu zayd inay islaameen oo islaamnimada qarsanayaan miyaanan ogeyn buu ka yidhi marka sacd ibn abi waqaas isagu uu islaamay laakiin islaamnimada ma muujinayo u cabsoonaya nebigana uu u baqay deedna cumar buu leeyahay sharkiisa iyo fidnadiisa xagga walaashii kaga jeediya seedigii waa xikmad ma ogtahay akhafu dararayn buu eegay markaas tanaa fudud buu yihi markaa cumar isla markiiba aqalkii walaashiibuu ku soo kala fareeyey uu soo noqday walaashii khabaab baa markaa la fadhiya saxaabigii loodhan jiray khabaab qur'aanku markaa baraya suuratu taha baa markaa soo degtay dabeedna suuratu taha buu ayada iyo zawsheega saciid binu zayd buu barayaa markay maqashay hadalkii cumar binu khadaab ayay tihi khabaabo adigu halkaa ku dhuumo iyadiina halkaa bay fadhiisatay ninkeediina halkaa buu fadhiistay cumar baa laga cawdi bilaysanayaa oo la leeyahay ilaahu sharka cumar naga jeedi maanta markaasuu cumar ku yidhi haya faaduma soo kac way kacday aqalkan maxaa ka jira bal ii sheeg oo maxaa jiray ku tiri waxaa igu maqalay inaad diinteenna ka baxdeen oo diinta maxamed aad raacdeen waar isqaboojiyo iska soco bay ku tiri naa marka dibadda soo socday buu yidhi hadal baan maqlayey buu yidhi hunnu baan maqlaye maxaad akhriyayseen sheega markaasay ku tiri war yaa dhegayso annaku dad muslimiin aan nahay bay ku tiri waan islaamay ninkayguna uu islaamay baatilka iyo diinta gaalnimada maad nagu qasbi bay ku tiri markaasuu seedigii baa soo bood oo la hadal is yidhi seedigiibuu cumar dhulka u dhigay baa la yidhi xambaara intuu qado dhulka ku dhiftay walaashii baa ku soo booda cumar faatuma farahaasuu markaa afkaasuu faraha kaga dhiftay deedna dhiig baa afkeedii ka yimiday markuu arkay seedigii oo dhulka yaalla walaashii uu dhiigna ka daadanayo cumar qalbigiisii baa dabco u jilcay markaa bay ku tiri waryaa haddaad doonta nafta nagaga jar bay ku tiri diinta islaamku tuwaa ka soo noqonayna maaha
markaasuu cumar uu naxay hadeetood walaashuu dhiigu ka daadanaya markuu ah yaa banaata almuslimaat dhegaysta walaalayaal diintan islaamka gabdhuhu haweenku diinta qaybtaad ka soo qaadateen dhegaysta walaalayaal faatima radia allahu canha dhiigga ka daadanaya walaashii cumar markaa uu ooyo wuxuu ku yidhi walaala buu ka yidhi faatimaay warqadaad akhriyayseen hariggaad haysateen qur-aankii waxay ku qornaa ii dhiib buu ka yidhi markaa bay tiri ku dhiibi maayo nin mushrika oo nijaasa ayaa tahee orodoo soo weysaysa bay ku tidhi deedna uu socdo u weysaystay markaasay halkii ka soo hoos baxay sariirta markaasuu abshir yaa cumar binu khataab bishaarayso habeenkii khamiista anaa labadaa dhagood ku maqlaaya nebi maxamed oo ducaynaya oo leh labada cumar midkood ilaahow diintan islaamka ku cizeeyey camar binu hishaam iyo cumar binu khataab camar binu hishaam waa abi jahl cumar binu khataabna waa cumar alfaaruuq markaa bui abshir yaa cumar ducadii nebi maxamed aday kugu dhacday maanta deedna uu soo qaaday nebigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam nebiga hortiisuu ku islaamay isla markuu islaamay cumar wuxuu yidhi xaq ma ku taagannahay nebi allow haa baatilna ma ku taagan yihiin qurayshi haa xaqa la qarin maayo bannaanka u soo saar buu ka yidhi hadeetoona war diintani nin geesiyay u baahan tahay nin shujaaca bay u baahan tahay nin sakhiya bay u baahan tahay nin caalimay u baahan tahay nin wajahadle bay u baahan tahay diintu nin raganimalay u baahan tahay diintan islaamka waxay u baahan tahay gabadh diin markay noqoto aad waxba ka cabsanayn oo xaqa ummadda u sheegaysa deedna cumar islaamnimadiisii muslimiintii baa ku cizoobay khilaafadiisiina cadaaladii baa adduunka o dhan ku gaadhay ayaa u sababa walaashii gabadh baa u sababa walaashii baa u sababa islaamnimadii cumar muslimiintii bay cizi u noqotay guul u noqotay sharaf bay u noqotay khilaafadii cumar binu khataab uu talada ummadda hayayna cadaaladda islaamka adduunka o dhan laga ogaado inay cadaalad islaamku yahay marka diintan walaalayaal rag iyo dumar xil baa inaga saaran mas-uuliyad baa inaga saaran xilkaa diineed maanta inaku inagu soo wareegay inaan diinta isku wada taagno oo ka shaqayna siday nolosheenna u iman lahayn oo dhallinyaradeennu diin uga muuqan lahayn oo madaarista aan u wada camiri lahayn oo masaajidda u camiri lahayn oo magaalooyinkeenna markii la eedaamo qof bilaa salaada looga waayi lahaa magaalada insha allah dhexda insha allah dhexda nin caddaana faransiisa gabadh muslimada isjeclaadeen gabadhu gabadh aad isku ilaalinaysa bay ahayd waxay tihi waryaa aniga ima taaban kartid ilaa aad islaamtid mooyaane markaabuu reerkoogiibu u yimiday waan islaamayaa buu yihi masjidkaa la keenay culimmadii baa la hor keenay shahaadateynkii baa loo laqinay 2-3 bilood baa layidhi markaa ku soo diyaar garow in gabadha lagu wareejiyo aqal buu soo diyaarsaday markaanu gabadhii aqalkii waan diyaarsadee gabadha ha laygu soo wareejiyo ha laygu soo hooyo caawa gabadha aabbaheed baa ku yidhi waad islaamtay hal maalinna maskiidka kugumaanu arkinin markaasuu yidhi jawaabtu way fududahay waxa weeyaan jawaabtu waxa weeyaan marka la eedaamo muslimiintu waa 2 qaybood waan u fiirsado qolana masaajidda u soo dhaqaaqdaa qolana maqaaxaya iyo dukaanadiiyo suuqay ku hadhaa weliba qolada dibadda ku haraysaa badane qolada masaajidda imanaysa way tiro yar tahay markaa qolada maskiidka imanaysa anu kumaan biirine kuwa bannaanka jooga ku biiray ahayd buu yidhi ninka tiisa dar yeelay baa he ayaa ta kalena ku dara waxa umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxa diinteenna u dana ayaa dadnimadeenna iyo dalkeenna u dana haddaan diinta ka shaqayno diinta baranno oon awlaaddeenna qur-aanka barno oo gabdhaheenna asturka barno oo inaku diinta wakhtigeenna aan ku bixinno yaa waxaa dhacaysa inay diintu kashkeen iyo laabteen iyo mujtamaceenna diini ka muuqato deedna markaa amnigaa ilaahay xaqiijinaya aman barwaaqo maxabo horaan u soconayna markaa adduun iyo aakhiraba marka insha allah dhahada inaan diinta shaqadeeda u wada kacno oo gacmaha isku qabsano dhallinyarta odayaasha culimmadeenna caamadeenna gabdhaheenna oo diinta ka wada shaqaynaysa oo diyaar manihin insha allah fasax markaad heshaan inaad ilaahay darti u baxdaan soo diyaar ma tihidino inaad jabuuti iyo hargeysiya ijtimaacyada noogu timaadaana soo diyaar ma tihidino mandheeraan xasuustaa 20 sano iminka inay ku dhowdahaan u malayn jamaacaddii ugu horreysee mandheero nooga timiday 3 nin oo mucallimiinta iskuulka ayay ahaayeen
sanad kasta waxaa jira sheekh xuseen oo goor maad noo iman waagii ilaahay waafajiyaa ni iman ilaahay maanta ii kiin keenay ana nasiib badan markaynu soo ziyaaratay marka waan guddoomaynaa waxay noo ballana inaan diinta ilaahay ku dhaqanno oo falno baranno oo ka tigina diinta ku bixinaa noo ballana soo maahinde bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra